بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف هذا الكاس إذا عدى عن كده جيستي لكن أنا أوفيشال وقرالي مسؤول قارين. كل maamulka waad ka warqabtaayo haddii arrintaada go'aan laga soo saaray warkaas kulli wax waad kala socotay marka maxaad go'aankan asaga jawaabtaadu tahay adiga sideed u aragtaa horta aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in maanta Soomaaliya ay dawlad leedahay iyo sharci ninna wax laga qaadayo ninna wax loo dhiibayo aniga ebadba waa lay dhiibay haddana nin Soomaaliyeed oo walaalkeeya haddii loo dhiibo horta marka ugu horeysa aadaan u soo dhaweeyaa marka labaadna xafiiska ra'iisul wasaaraha waa xafiiskii dawladda waana sharfan yahay laakiin soo jeedina uu leeyahay ka qaadista kaba dambaysta waxaa laga sugaa madaxweynaha maxaad saas u leedahay maxaad u cuskanaysaa arrintaas sharciga dalkaan u cuskanaya maxaa yeelay sharciga dalku wuxuu sheegaa saraakiisha sare cidda magacaabi karta waa madaxweynaha ra'iisul wasaaruhuna soo jeedin uu leeyahay waana sidii laygu magacaabay laakiin hadda nafteedan soo jeedinta soo dhaweeyaa madaxweynuhuna hadda u soo raaciya qaadistu sidaasay ku dhammaanaysaa diyaarana u ahay maxaa jira sharcigii dalkayga wixii waafaqsan iyo dadkayga aad iyo aadaan u soo dhaweeyaa in dawlad Soomaaliyeed maanta jirto ninna laga qaada ninna loo dhiibana waxaan sugayno waaye arrintaasuna mid fiican waaye aadaan u soo dhaweeyaa ninkii saaxiibkeeya oo walaalkay Soomaaliyeed oo laygu bedelan hadday barashadoorada soo dhamaystaa ila yimaado si maaragtay shacabka Soomaaliyeed aanu hortagayno gacmaha isqabsanayno sidii kii iga horreeyaba aanu hortagnay gacmaha isqabsanay ayay naga doontaa haddii ilaahay waxaan ku weydiiyey adigu arrimaha ama lagu eedeynayo ama sababta ka dambaysa ma la socotaa xilka qaadidaada aniga yaa eedeeyo maxaa lay eedeeyaa aniga xilka waa lay dhiiba waana layga qaadayo midaaba lay eeday karaa hadda xilka haddaad keenay in xil la iska qaado iyo in la isu dhiibo wax sharci oo sharciga dalku qaba waa marka eedumaba jirtaba aniga hadda in eed iyo wax jiraan ila maahan waa barashaduura sharciya oo sharciga qaranka Soomaaliyeed ogol yahay waa lay dhiibay haddii layga qaado marka sidaas waaye eed maxaa keena sharcigaas dhahayo duqa magaalada madaxweynaha kaliya ayaa magacaabi kara ama erigi kara shaqada ka fariisin kara ma dastuurku ku yaala ninka la yiraa Yuusufow adiguba sharciga dalka waa taqaan Soomaaliyana dawlad dimuqraadiya oo maaragtay hay'ado isu dheeli tiran la waaye sharci kasta hadduu golaha wasiirada ka soo baxay hadduu baarlamaanka ka soo baxaba go'aanka kama dambaysta aqbalaadda sharciga Soomaaliya sida uu dhigayo madaxweynaha leh mid hadda aniga laygu darnaayo ama laygu roonaayo maaha marka arrintaasu wax weyn maahan mar haddii golaha wasiirada isku soo raacaan xafiiska ra'iisul wasaaraha ay ka soo baxday madaxweynuhuna inuu oggolaado wax caadiya waayo wax dhibaataa ma ahan haddii madaxweynaha naftiisa oo inuu wax ka qabo ay suuragal galto wax qaldan yihiinna meeshii ay ka qaldan yihiin waa laga saxi doonaa laakiin hadda aniga waxaan ba joogaa waa barashaduura caadiya waanaba soo dhaweeyaa oo aadaan ugu faraxsana marka haddii la soo koobo nuxurku waxa weeye weli ma dhammaan arrintu ra'iisul wasaaraha soo jeediyey madaxweynahayna ku xiran tahay wuxuu ka yeeli doono adigu sidaad u aragto waa qaabkaas hadda madaxweynuhu wuxuuba ka yeelaa inuu aqbalo maxaa yeelay anigaba markii lay magacaabayo ra'iisul wasaaraha soo jeediyey madaxweynuhuna waa aqbalay tanna sidii oo kale ayuu aqbalaho wax dhibaataa ma jiraan marka anigu dukumentiga aan haysto dukumenti lamida haddii uu ila yimaad nin walaalkeeya oo muwaadin Soomaaliyeed waa soo dhaweeyaa kursiyadana waa wareejaa waxa kale ku weydiiyey haddii hadda la yiraaho maalintii lagu magacaabay duqa magaalada Muqdisho ilaa haddeer waxa ugu weyn oo aad isleedahay waad qabatay oo aad taariikh ahaan xabarka ugu soo xasuusanaysa maxay tahay aniga wax badan aan qabtay wixii aan qabtay hadda inta ii diyaarsan yihiin wax aan uga hadlaayo cawada Yuusufow BBC maahan hawshaas in la diyaariyay u baahan tahay laakiin wax waa qabtay maxaa yeelay inaan wax qabtay magaalada Muqdisho ayay ka muuqataa kan iga dambeeyana hadda meeshay shalay markaan aniga laygu wareejaayo ay joogto meel ka fiican oo ka bilaabi doonaa asuguna wax ayuu qaban doonaa kamana soo dhalana waa laga sii qaadi doonaa oo mid kaloo Soomaaliyeed mar doorasho looga qaado ama warqad xafiiska
soo baxdaa looga qaadi doonaa marka arrintaasu barashadura caadi waaye nin walbana karaamkiisa u qabanaya ana karaamkayaan qabta kuwa iga dambeeyana karaamkooda ay qaban doonaan waana mahadsanta hadday dhacdo in xilka lagaa wareejiye haddeer nin galgal badanaad ahayd siyaasaddana wejiye badanaad usoo gashay maxaa kuugu xigi doona tallaabadan insha allahu yuusufow maalinteedaa la gaara hadda taran haayaan horta tan wareejo